mahadsanid cabdullaahi waxaa shalay galab lagu dilay magaalada Cape Town xaafad ka mid ah ee lagu magacaabo Midges Plain 3 nin oo Soomaali ah kuwaasoo la sheegay in dilkoodu ka dambeeyay nin kale oo Soomaali ah ninkii dilka ka dambeeyay ayaa waxaa gacanta ku soo dhigay ciidamada booliska ee xaafadaas Midges Plain ilaa haatan waad arkaysaan goobtii dilkaasi ka dhacay booliska ayaa isku gadaamay oo xiray cid gudaha u gali kartana ma lahan 3 nin laba ka mid ah isbitaalka ay ku geeriyoodeen halka midkii ugu horeeyana oo ku dhintay isla goobta sida wadankan South Africa cadiisu ay tahay markii la dilo qof oo waxa dhacda in si degdeg ah meesha looga qaadin oo ay sheegeen in ay xaqiijinayaan qaabkii dilkan uu dhacay oo baaritaan ay sameynayaan Soomaalidii meeshaasi joogtay qaar kamid oo aan wareysanay ayaa waxa ay noo xaqiijiyeen in ninka dilay wahay nin Soomaali ah balse booliska wax war oo ka soo baxay ilaa haatan ma jiraan waxaana sugaynaa in boolisku ay ku cadeeyaan ninkan inuu yahay ninka dilka geystay sababihii dilkan uu geystay ilaa haatan lama ogo waata Cabdullaahi waxa la sheegay xilligii ninkan Soomaaliga uu dilay Soomaalida kale in xabadihii uu ku furayay raggaasi Soomaalida ay sidoo kale waxyeelo u geysatay haweeney South African iyo waliba nin kale South African sida la sheegay marka iyadana waxa kala jira arintaas waa ay jirtaa oo ninkan xabadihii uu furayay oo raggan Soomaalida waxyeelay sida aan ka warqabno waxa ay waxyeelayeen laba ruux oo South African ah intaas oo dhanna oo dhibaato ah ninka Soomaaliga ayaa geysay dambigaasna kulay booliska ayaa u soo qabtay sida ay sheegeen baaritaan ay ku wadaan ninkan inuu yahay nin la soo diray nin caafimaad qaba ama nin waalan kulay sababtii ka dambeysay arintan ayay ugu jiraan baaritaan gacanta dawladda ayuu ku jiraa ninkaasi ilaa haatan lama ogo sababta ninkan ku kaliftay in uu rag Soomaali ah oo uu ku dilo halkaasi lama sheegin wax dagaal oo dhaxmaray balse waxa la ogsoon yahay ninkan Soomaaliga ah oo xabado ku furay 3 nin oo geeriyootay waata marka Cabdullaahi waxa la sheegay ninkan Soomaaliga laayay Soomaalidan kale in uu ka yimiday magaalada Durban ee gobolka KwaZulu-Natal waxa la sheegay in Cape Town uu ku sugnaa muddo 3 maalmood ah kadibna falkaani uu geystay hadii ma ku suurta gashay inaad macnaha xog hoos aad ka hesho Soomaalida degan Midges Plain arrinkaas waan isku daynay dad badan aan waraysiyo kala duwan la yeelnay waxa ay noo sheegeen in ay suuragal tahay in ninkani uu aana hore kala dhahaysay dadkan uu toogtay balse arrin xaqiiqda ku salaysan ma hayno waa uun hadallada Soomaalidu ay isla dhaxmaraysay iyo falkaas oo u eg fal aana ah waata marka goorma lagu wadaa in Soomaalida uu dilay ninka Soomaaliga goorma lagu wadaa in la aaso Soomaalidan waxa la aasayaa maanta xilliga dambe waxaan lagu aasi doonaa magaalada Cape Town xaafad ka mid ah lagu magacaabo Adlon oo inta badan lagu aaso dadka muslimiinta ah waxaan rajaynaynaa in dad badan oo Soomaali ah ay ka soo qayb gali doonaan aaskaasi dad Soomaali ah oo ayaa aad u ambaareeyay falkan oo mas'uuliyiin ah iyo madaxda jaaliyadaha maadaama falkan uu yahay fal aan weli uga dhaxdheerin bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwan ku nool magaalada Cape Town waana arrin naxdin gelisay intii maqashay iyo intii goobta ku sugnaydaba waa tahay aad buu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa wariyaha telefishinka qaranka Soomaaliyeed ee dalka Koonfur Afrika Cabdullaahi Ibrahim Dasar mahadsanid Cabdullaahi